والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. haddii rabbi idmo waxaynu kelmado kooban ka tilmaami doonaa aayaadkaasi la akhriyay badh ka mid ah. aayaadkan oo ah lowxa rasmiya ama bandhigu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo bandhigayo addoomaha uu jecel yahay ee uu u nisbeeyey isagu isu nisbeeyey oo cibaaduraxmaan uu ku tilmaamay sifaadka iyo muwaasafaadka ama tilmaamaha iyo astaamaha lagu yaqaano ee addoomahaasi ay leeyihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala kuwii fuliya astaamahaasi iyo sifaadka in rabbi inaga yeelo. waxaa ugu horeeya ilaahay uu ku tilmaamay waa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna. addoomaha rabbi baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala cibaadu araxmaan. kelimada cibaad biluga alcarabiya waa jamcu cabdin aw jamcu caabidin. fi luga cibaad haddaad cabdi jamcinaysana cibaad waa lagu jamcin karaa, haddaad caabid jamcinaysana karaajil ama saaxib, sixaab, rijaal, taajir, tijaar waa loo jamcin karaa sidaana. haddaad ta hore qaadato cibaaduraxmaan oo aad cabdi ka keento waa servantiskii alle ama kuwii rabbi subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ahaa. haddaad ta dambe qaadatana waa kuwii rabbi caabudayey. caabid bay ka timi markaa cibaaduraxmaan waa kuwii rabbigood caabudayey. walawal adharu bay culammadu yidhaahdaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala duulkan isaga ayaa isu nisbeeyey oo wuxuu ku tilmaamay inay raxmaanka addoomihiisii yihiin. waxaynu naqaanaa macruufa inay jiraan kuwo shaydaanka loo nisbeeyo, cibaadu shaytaan aw cibaadu shaytaan. kuwa adduun loo nisbeeyo tacisa cabdu dirhami wa diinaar uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. qof waliba wuxuu caabudaa loo nisbeeyaa, laakiin kooxdani waa kooxda aanu shaytaan awoodda u lahayna ilaahay qur-aan ku tilmaamay inuu shaytaan yidhi fabicizatika lauqiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin. dadka kaleo dhan waa luminayaa buu leeya addoommahaaga mooyaane. ina cibaadii laysa laka calay ilahay wuxuu tilmaamay ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan. addoommahayga awood kuma lihid ilaa man itabacaka min alghaawiin mooyaane. kuwan cibaaduraxmaanka markaa la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa uu nimceeyey ah jannaatu cadnin alatii wacada araxmaanu cibaadahu bilgayb qul alxamdu lilaahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa. addoomahaasi rabbi subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku ammaanay waa kuwa isaga caabuda. aayaadkan aayaadka ka horeeya haddaynu dib ugu noqonno ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa qaar aan isaga caabudina dafiraba. waidaa qiila lahum isjuduu lilraxmaan qaaluu wama araxmaanu anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura. haddii la yidhaahdo baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala u sujuuda raxmaanka, raxmaanka idin abuurtay u sujuuda, waxay ku jawaabayaan qaaluu wama araxmaanu, waa kuma raxmaankaasi muxuu ahaa? yacni ilaahay bay dafirsan yihin subxaanahu wa tacaala. ilaahay bay asmaadiisa diidan yihin, inay caabudaan diidan yihin. aayadda tani markaa waxay tilmaamaysaa wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna. addoomaha raxmaanka baa ilaahay leeya waa kuwa dhulka kor socda hawnan ay mashyan hayinan aw xaala kownihim. inaad xaala iyo masdar mutlaqa kaa doonta ka dhig. dhulkay kor socdaan iyagoo hayiniina, iyagoo degan, xasiloon, ama dhulkay kor socdaan socod subxaanahu wa tacaala. waxaa la yidhahdaa qofka bini aadamka
dareemadiisa qalbiga iyo maskaxda ku jira wuxuu ku cabirayo ku muujiyaa dhaqdhaqaaqa jidhkiisa iyo qaabkuu u dhaqmayo. qofka waxa ka tarjumi kara waxa uu rumaysan yahay ama qaabka uu fakarayo waxaan lagu tilmaamo body language-kiisa, yacni jidhkiisa qaabku u dhaqmaa marar badan ka tarjuma. cibaaduraxmaan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay socod degan oo hayina soconayaan, socod aanu ku jirin qab iyo isla weyni, faanfaan iyo dadka uu iska kor yeelaya aanu ka muuqanaynin. waayo kibirka iyo faanfaanku dhaqanka cibaaduraxmaanka maaha, ee waa kuwa gaaloobee ilaahay diida dhaqankooda. walidaalik baa qur-aanku saalixiintana wuxuu ku tilmaamayaa iyo dadka wanaagsan inay dad mutawaadiciinayiin, dad degan oo tawaaduc iyo isdhuldhig ay ka muuqato, iyo naftiisa uu hanjabinayo aan u arkaynin wax weyn oo dadka mutamayiska ah inuu yahay, halka gaalku u arkayo kibir iyo santaag iyo wax yaroo nicmooyinka ilaahay hadduu isku ogaado uu basharka dheer yahay inuu aada u sii kibro. walidaalika baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa kibirkuba inuu yahay waxa shaytaan lumiyey. aadam macsi buu ku dhacay, markii uu macsida galayna wuu ka toobad keenay. amaa ibliis macsi buu ku dhacay, markii la weydiiyeyna kibir buu sii qaaday oo macsidiisa kibir baa ka dambeeyey. walidaalika baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya kuwa rabbi diidan oo dhamminayiin duulka kibray. innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun baa ilaahay yidhi. waxay yihiin kuwo haddii lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allah yastakbiruun, kibraya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. ilahay qur-aanku wuxuu kaga warramayaa fircawn iyo qaaruun iyo haamaan. walaqad jaaahum muusa bilbayinaati fastakbaruu fi lardi wamaa kaanuu saabiqiin baa ilahay yidhi. nebi muuse wuxuu la yimi cadaymihii risaalada caddaynayey, dabeetana fastakbaruu baa ilahay yidhi, waa kibreen, waa iska weyneeyeen. ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin udkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha fabi'sa mathwa almutakabiriin inahu laa yuxibu almustakbiriin. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaana wa tacaala duulka ka soo horjeeda ee saalixiintiina iyin kuwa kibray. marka cibaaduraxmaanka sifadooda koowaad waa sifo tilmaamaysa inay yihiin duul aan kibir ku jirin, dhulka iyagoo isweynweynaya aan dul soconin, bale rumaysan minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay yidhi. dhulka kan isagaanu idinka abuuray baa ilaahay yidhi, isagaana laydinku xabaalayaa, isagaana laydinka soo saaraya. idan wuxuu arkayaa meeluu isku weyneeye inaanay ahayn. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada. taasi waa daarta aakhiro, waxaanu u yeellay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwa laa yuriiduuna culuwan fi lard, kuwa aan dhulka isku waaweyneynin, kuwa aan dhulka intay joogaan isla weynidu haynin. ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisii muxamed ahaana wuxuu u tilmaamayaa isagoo ah ashrafu khalqi illaah, inta aynu garanayno u sharaf badan, isagoo ah basharka kuwa ilaahay ka doortay, isagoo ah aakhiro maqaami almaxmuud aw ilwasiila manaasisha shareed jannada ka loo ballan qaaday, isagoo ah mudanka bini aadam oo dhan ka u horeeya, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi wakhfid janaaxaka lilmu'miniin wakhfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin. laba aayadood oo qur-aana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa garabkaaga u raariciyo u dhimri oo u dabacsano oo mutawaadic u noqo baa ilaahay leeyahy mu'miniinta kula socota. haddii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam amarka la siiyey uu yahay tawaaduc, maxaad u malaynaysaa cidda ka soo hadhay? haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo dadka u khayr badan la farayo inuu saxaabadiisa uu u tawaaduco, waxaynu ka garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aan badan buu inoo soo dejiye uu soo dhiibo lagula hadlayo walaa tamshi fi lardi maraxa
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ربي وحليه هيدلكها كرس عن أديقو كبري المرح والفرح في القرآن وكبرك يسلوين ده أديقو كبري دلكها درس عن وايو إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا دلك مد اللاعين يسي دق دق buuraha ma gaadhaysid baa ilaahay subxaana wa tacaala qoorsuqaadkaaga arrintaada dhaafi maysid baa la leeyahy walidalik baa rabbi wuxuu tilmaamayaa inuu qofka muslimkii ahya dhulkiisa kor socdo luqmaan alxakiim oo inankiisii la dardaarmaya markuu u tilmaamay inaanu ilaahay u shiriik yeelin iyo salaada inuu iyo wixii la mida wuxuu u tilmaamay walaa tusacir khaddaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa إن الله لا يحب كل مختال فخور لوكا كوركيسا dadka buu yidhi dhabarka hawtaada waa iska weynayn dhulkana adoo kibray hadduu mari ilaahay ma jecla mukhtaalka iyo fakhuurka almukhtaal waxaa la yidhahdaa waa ka ficilkiisu ka waramo qalbigiisa wixii ku jiray isla weynidu fakhuurkuna waa ka qowlkiisu uu ka waramo kibirkiisa midna afcaashiisa sheegaysa inuu kibirsan yahay oo dhaqankiisa midna hadalkiisa sheegaya taala markaasi wuxuu amray nabigiisii maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muuminiinta aba inay isdhow dhigaan bale qur-aanka waxaa laynoogu tilmaamaya kuwa ilaahay jecelyayba tawaaduc iyo isdhuldhigu inuu ka mid yahay علاماتك ورب سبحانه وتعالى أدومه سكجعل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إلهي وحد الماما يا حتى إذنكو دين تكتكتان وحا ربي كاني دونا دولو جعلي هاي يقول ربي قد جعل دول كان محاو على مدى أدلة على المؤمنين بإلهي ذاتك المؤمنين تهوى قوة متواضعين أعزة على الكافرين وصفات إلهي قرآن وصفة هي صحابة النبي محمد والذين وحماء بينهم بينهم نبي محمد صفات سؤالي رسولك كو الله صعد صفادودنا وين قالنا عزيزين هنا اكتيس مركي جوغان مؤمنك دحدودنا يهين دad رحمه وسن حريسته تواضعاس nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin dadkii hore ka mid ah ayaa isagoo soconayo iyo tabakhtar yacni iswaaweynaya ilaahay subxaanahu watacaala dhulka la gooyo dabeetana dhulku uu la sii soconaya ilaa qiyaami saaca khasfiga iyo dhullagoyntuna waa calaamaadka qiyaamaha lagu garto haddana dee miidiya waa akhridaan baan u malaynaya maalmahan dhaweyd intuu dhulku la go-ay 7 ay marayaan baan rajeynaya uu ka mid yahay mid maraykana gurigiisi iska jooga ayuuba sariirtiisu la gooday kamaray ka dabaride 220 mitir mise 210 mitir lama hayo meelu jaangooyey sariirtiisuunbaa gooday guriga intii kale waa caadi ilaahi subxaana watacaala kan wuxuu tilmaamayaa isagoo kibray in ilaahay dhulka la gooyey waxa uu nabigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka aan mutawaadiciinta ahayne kibirka ku sugan inaanay jannadaba gelin laa yadkhulu ljanna man kana fii qalbihi mithqaalu daratin min kibr bale nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kuwa kibirka qaataa inay aakhiro imanayaan iyagoo dara dhuudhicasa ama quraanyo leeg oo calaa suurati bni aadama sawirkii bini aadamna leh quraanjo unbal adigu bini aadama qiyaas intay leegtay oo dadku ku tumanayaan adduunka markuu iswaaweyneeyey aakhiro isagoo noocaas iyo in lasoo xaadirin doono kibirku markaa waa 2 qaybood uun qaybi waa batri alxaq qaybina waa gamti nnaas
حق الديد وكبر إلهي وكبر فودو الديد إن الدلك ديك وكبر إلهي وحكو يري سجود وفود الدلك ديك هذا الديد وكبر سنتي ويان حق الديد استيسو مركا وكبر بني آدم كحق رستيسو وكبر نبي نوح عليه الصلاة والسلام حديث مسلم ورين أيه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إلهي وحيودي أن تواضعوا اسلول لك يتواضع إن أدلت مادان تواضع إنه كور رمني يسلول لك إنه لأن نبغو كسفه ومتكو صابسان دقن كي أخلاق ده ما هسعد كوقفكو اسبختيه تماوتكو geeriska yeelyeelku kuma jirto bal nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam socodka cidi kama dheerayn jirin markuu soconayo saxaabadu way daba roori jireen ma ay gaari jirin xoog buu socon jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaynu ka warramaynaa inaanu xaqana diidin dadkana iska weynaynin socodka tilmaamaya marka kan inuu qofku waxa xaq la yiraahdaa inaanu iska weynayn basharka kalena inaanu xaqirin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma idin warrama xadiidka saxiixayn ku yaala jannada kuwa galaya inay yihiin waa dadka ducafada abu ku tilmaamaya kullu daciifin mutadacif law aqsama cala allahi laa barra qaar hadday ilaahay ku dhaartaan waxay ku dhaarteen ilaahay run ka dhigayo ahlu naarkana ma idin sheegaa buu nabigu yidhi waa kullu cutullin jawaadin mustakbir ومد كستو عتلة عتلك وجافك شديد الطبع ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى هيئة المامي وقفك دبي عد حله دبي عد عدك هي جواظ بقى النبي يقولي جواظ كنا وهنجري بدنها وحباب حنين وجماع ننوح أرورية ومنوعة جموع نويا منوع نويا وأنا أرورية كما صوب حدد مستكبر كروا كيسوا وينيه هدaynu dib ugu noqono siiradii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu arkaynaa isagoo qofka rabbi maamuusay uu yahay inuu haddana ahaa dadka qofka ugu mutawaadicsan xadiidka sheekh al-albani saxiixa ku tilmaamayo bijamiici turuqi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo meel fadhiya waxa uu yimi jibriil oo la fadhiya ayaa malag ilaahay u soo diray jibriil baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo malaga kani waa markii ugu horeysay ee uu dhulka u soo dhaadhaco u soo daadego awal mara waa malaa'igta samada jirtay sidii loo abuuray haddunbuu soo dhaadhacay haddana hal fariinuu sidaa fariintaana nabigaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana u soo diray waa maxay fariintan uu sidaa muxuuse dadka u sheegay nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa i soo diray waxaana lay kaa soo diray يانا نقطه عبدا رسولا رسول الله يدعو كيسيان بغطوية وحطة ورحيني سؤال النبي قال لو يديني عليه الصلاة والسلام جبريل لو لك جوغا طلب بحب حنيا ملك جبريل بركة نبي طلب بحنسية ثلاث سوح أوليا تواضع لربك يا محمد نبي محمد إلهي سلوك لك تواضع صبيه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا بل عبدا رسولا وحان ضوطي أدول إله الرسول هنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بغطوي يعينه وهوينه إلى ليه ينقالت رمض وراها قف صحابتي سكمده وقفك قريبك مركو يمادان وكدح قرانين صحابته وكي كيبا من النبي محمد أبو يورجرين أعرابته مركو يمادان markaasaa loo tilmaamaa bale xataa saxaabadii madiina joogtay markuu nabigu soo hijrooday ee uu maka ka yimi way garan waayeen aan hore u aragay abubakar iyo nabiga kale garan waayeen markaasay qaar badan ay abubakar salaanta ku bilaabaan iyagoo isaga moodaya nabigii inuu yahay calayhi salaatu wasalaam markii dambe abubakar
cadceed baa timo go-i uu sitay buu nebiga dallaayad uga dhigo u hadheeyey markaasay garteen inuu yahay kan kale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bale saxaabadiisa maalintii dambe wuxuu ku yidhaha ilaahay rasuulkiisiiyow dadka yimaada si ay kuu gartaan oo waxay doonayaan ay kuu weydiiyaan dekad yaraan kuu samayno yacni fadhiga meesha la fadhiisanayo meel yaroo taagan oo at least in lagu garto ilaahay rasuulkiisii inaad adigu tahay aanu dekad yar kuu samayna bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadku ka mid ahaa wuxuu ku lahaa war siday reer banu israa'iil nebigoodii ciisaha ugu xadgudbeen ha igu xadgudbinina ciisa lagu xadgudboo layidhi waa ina ilaahba dadka waa ka sarreeyaaba war aniga ha igu xadgudbina waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuli weeyaan ilaahay addoonkii iyo rasuulkiisii weeyaan dhaha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo noloshiisu waxay ahayd in cid waliba magaalada ay u yeedhan karto caruurta markuu nebi maxamed ka soo horbaxo uu salaami jiray caruurta yaryar iska cayaaraysa markuu ku soo baxo uu salaami jiray addoomuhu gacanta intay qabsadaan ayay kaxaysan jireen ilaa dantooda uu soo dhammeeyo cunada wixii la siiyaba uu iska cuni jiray xataa waxaa la tilmaamaa bacd saxaaba waxay